أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta darsinkeena waa maaragtay casharkii shanaad baan ku jirnaa weli darsul khaamis qaybtiisa toddobaad meesha korarka arkaysa maaragtay webkan waxaa ka baranayna waa madina arabic .com. my youtube waxaa way adig la soo xiriiri kartaa, waa looga yara one my facebook tafsiirka qur-aanka. waxaad kaloo igala soo xiriiri kartaa maaragtay aan ka mid ahay adminka qolka qur-aanka kariimka insha allah. okay, casharkeena maaragtay aan bilaabeynana insha allah darsul khaamis annidaa isu yeerista waa xarufta sida la isugu yeero xurufu nidaa. I think inaa hore usoo qaadanay. maanta casharkeena wuxuu xoog saarayaa kelimadan yaa. xuruf kaloo nidaa way jiraan, kulleba gadaal bay ka imaan doontaa malaha, sida haya oo ay oo kale oo saas oo kale, ama hamza oo kale. markay imaadaan aan ka hadlayna insha allah. hadda yaa xaruftan yaa bay ku saabsan tahay, xarfu nidaa. xarafka dambeeyana munaadi waa la yihahdaa, waa kii loo wacayo. yaa waa aadaad xarufta loo isticmaalo wacitaanka. okay, waxaan rabaa inaan maaragtay xasuusano maaragtay ama idin xasuusiyo magacyada oo waxay kala baxaan loo qayb: mufrad magac ah iyo magac oo murakab ah aan mufrad ahayn. ka mufradka sida hal xabo inuu yahay camal maxamed, xasan. kuwa labada ah oo mudaaf ilayhiga ah oo cabdullaahi iyo saalaxdiin iyo kuwa waa labo murakaba la dhahaa. cashirka maanta wuxuu ku tilmaamayaa marka maaragtay magacyada mufradka ah oo hal xabo ah. maybe cashir kale inuu keeni doono kuwa labada ah. waxaan rabaa inaan idin tilmaamo maaragtay cashir oon halkan ku sheegin oo ah labada magac, okay, inuu jiro. kaas maaragtay oo noqonaya mudaaf iyo mudaaf ilayhi hore usoo qaadan oo kale. anyway, cashirkiyaan idinku badin, sida sahlan oo u sharaxayan maaragtay gelayna insha allah. okay, yaa xarfu nidaa waaye. allahu waa munaadi, ilaah waa loo wacaya mogta. yaa allahu waa mufradka markuu u yahay dama aad saaraysaa waad godaysaa, laakiin asalka waa fatxa, waa kor dhow hadduu murakab yahay oo mufrad ahayn. sida yaa cabdallaahi waa leedahay, cabdullaahi ma dhehaysid, because sababta ah mufrad maaha magac, wuxuu noqday mudaaf. allaahina waa hoos dhabee, mudaaf ilaahi bay noqonaysaa, mudaaf ilayhi. anyway, cashirkaas I think inuu imaan doono isagana. I don't know, aniga wax imaan doono maalin walba cashirka saasaan maaragtay usoo galaa. marka waxaan is irahdaa way mudan tahay inaa xustid. so yaada waxbay kor dhowdaa, laakiin markuu mufrad tahay god bay noqotay. marka see u ciraabaysaa? icraabta horta naxwaha hadda kugu adkaada, don't worry. mabniyun cala arafc fi
في محل النصب بأصل كذي فتح هذا مركزي هراء مبني ظنين كاسي مبني كنتهاي مبني على الضم في محل رفع ومنادي قاس لكن عبد الله هذا تهي مبني على الفتحة وكل بيسها منادي وهو نقطة مضاف لاهي نواس بيسها because مضاف إليه هو أحب أنا فهمتي عشان كان كلية مارتي أندلس مارتي دول استاجي وان كلا عادي إنه شرحنا أوكي مفرد واي مركا ضم وكذينا في محل النصب معناها بوسكي وحو تاغن yahay كردوغا مبني على الضم في محل النصب ساسو ونحونا قواعدك هدان الله أنوي يا الله يا الله عباس ومقع أستاذك وتيجرك معلنك يا شيخ يا شيخ وقذين كل قد في محل النصب أصل كذا يأذى وحبي كردوضا أوكي مضاف إليه مرك لبعض مركا بهين يا ياسر وإيمان دنتا إن شاء الله دون هذا فهمين أما يسوي دي just different كده حسمنا وحي هو القذايا بس خالد لبا مدما إهد يا ذا مركته هالوك عليه خالد يا علي يا علي hoosna fiirina oo intaas lagu ekeeyo casharka waa cashar iska sahlan casharka shanaad oo maaragtay dhowr xab u kala bixiyay tartiiba sida qofka maaragtay oo ugu adkaanateen waxa lagu talagalay maaragtay dadkan af carabiga ku hadlin غير ناطقين بها second language ku tahay luqadda labaad marka lamid maaha dad carabi yaqaano oo ku dhashay oo wax la barayo carabi naxwa camal ma aha so that's why haddii tartiib baa u socda la yaabina markaas casharka systemkiisa saas ah intaas casharkii kusoo gabagabeynaya waxyaan hadalkeeda u dheeraan waxay su-aala waad isu weydiin kartaan tafsiirka qur-aankana maaragtay qur-aanka naftirkiisa akhriskiisa carabiga aad u kaaga saacidaha aad more practice samaysid waa sii baranaysaa maaragtay perfecto ku noqonaysa insha allah kelimadaha macnahooda tafsiirka qur-aanka aan soo dhigo af soomaaliga kusoo fasirayo waad helaysaa isku day inaad macnaha kelimadaha baratid more kelimada macnahaada baratid more aa luqada ku sahlanaanaysa aad baranaysid insha allah kule waa iska taqaanaa justay xusid bay iga tahay intaasaan casharkayga u baxayaa wabilaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.